Former President Hassan Sheikh Mohamud has been elected as Somalia's 10th president. Hassan Sheikh was president of Somalia from 2012 until 2017. Now he is back at Villa Somalia. Former President Farmaajo has peacefully given up power. It's not very clear who will be the new prime minister, but citizens of Somalia are happy that democracy and peace has returned to Somalia. xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuwa ay doortay kuwa codki siiyay iyo kuwa ay siinba waad mahadsantihiin walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo walaalkay madaxweynaha cusub Xasan Sheikh waan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa in hawshan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barino inuu hawshan u fududeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhawow ilaahay hawshan dhibka badan allah ku sahlo